Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa muuqaalka inaan idinku soo gudbiyo hadduu Ilaah yiraahdo sidaan hore ugu ballanay wax loo yaqaano ama productiga aadka hadda dadka uga ganacsadaan una isticmaalaan ee loo yaqaano Herbalife-ka. Waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo macluumaad ku saabsan Herbalife-ka aynan kuu sheegaynin dadka u ololeeya Herbalife-ka. waxaa jira marka wax markii aad rabto marka ugu horeysaba ee aad doonayso inaad ogaatid ama ganacsi ahaan inaad gashid ama caafimaad ahaan inaad u gashid ama cunto aad cunaysid waxyaabahaas oo idil hadday wax kugu cusub yihiin oo maaragtay waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso inaad baaritaan badan aad samaysid dadkana aad la tashato. keliya hal dhinac keliya haddii aad dhagaysato waxay noqonaysaa marka inaad macluumaad badan aad weyso meeshaasna dhibaato ay kaaga imaato. waxaa loo baahan yahay Herbalife oo kale tusaale hadda usoo qaadano waxaan u baahannahay marka inaan dhagaysanin oo keliya dadka u ololeeyo waayo dadkaas ayaga ayaa iibinaya ayaga ayaa gadaayo danahooda ku wataan shaqadooda ku wataan laakiin waxaa u baahan tahay inaad samaysid si ay dhexdhexaad u noqoto dhinacyada kalena inaad dhagaystid oo aad baaritaan samaysid. maanta in baaritaan la sameeyana way ka fududahay sidii waayadii hore ay ahaan jirtay waayo waxaad adeegsan kartaa internetka adoo gurigaaga joogo waxaad heli kartaa marka baaritaano caafimaad qaba oo faa'iido badanna aad ka faa'iidaysato. anigu markaan sameeyey baaritaan badan ama research aan ku sameeyey Herbalife-ka waxaan ogaaday inay jirto waxyaabo badan oo runtii oo sir ah aynan dadka u ololeeya Herbalife-ka ee Soomaalida maanta aynan u soo gudbinin dadka kale ee walaalahooda ah. sidaa daraaddeed ayaa waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo dhinaca kaleeto ama sirta kale aanan idiin sheegin Herbalife-ka si aad isugu miisaanto labada dhinac kadibna aad u gaarto go-aanka mar walbana waxaa iska leh qofka adiga ayaa iska leh. Herbalife-ka haddaan guud marku sameeyo marka hore maxay tahay Herbalife-ka waa cunto ama shakes mixed oo laisku qasay oo laisku daray waxay ka kooban yihiin waxyaabo badan oo laisku daray ayay ka kooban yihiin oo laisku qasay lasoo warshadeeyeyna dabcan oo processed soo maray kadibna gasacado caagada ah lasoo geliyey kadibna dadka laga iibiyo waa Herbalife-ka. qaabka looga iibiyaa marka ma aha sida productii kaleeto ee aan naqaano. company haddii uu soo saaro dhalla caana ah ama Coca-Cola ama waxyaabaha kaleeto productii kale dadka ay isticmaalaan sida caadiga normalka ah waxaa laga helaa dukaamada warshaday ka soo baxdaa waxaa ka soo qaato kuwa loo yaqaano jumlada ka iibsada jumlahaan u soo qaataan waxayna ku wareejiyaan qolo kaleeto oo loo yaqaano retailerska amaba tafaariiqda kuwa gada. taas waa productiga caadiga ee aan naqaanay laakiin Herbalife way ka duwan tahay. Herbalife-ku waxa ay tahay kambaniga iska leh ayaa wuxuu alaabtaas u gadayaa si jumlo ah wuxuu ugu gadayaa dad ayaga soo codsaday ee loo yaqaano distributorska ama qaybiyayaal kuwaas oo kadibna training la siiyo waxaana loo yaqaanaa coach. kuwaas marka ayuu ka iibinaya dadka caadiga ee rabo sida aniga iyo adigana waa inaan la xiriirnaa dadka noocaas oo kaleeto ah aan ka iibsanaa. dadka noocaasa marka ayaguna waxay u sameeyaan ay retailing inay si tafaariiqa u gadaan amaba dadka inay ku qalqaaliyaan inay productiga iibsadaan. qaabkaas ayay u shaqaysaa. productiga marka kambaniga Herbalife-ka iibiya qaabkiisa ganacsiga ah in badan ayaa wax laga sheegay laguna eedeeyey. productiga Herbalife-ku kambanigeedu wuu ballaaran yahay wuxuuna ku bilowday Mareykanka. qaababka uu u ganacsado iyo waxaasoo dhanna ayaan ka hadli doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan u kala qaado arrinta laba shay oo kale ah qaabkeeda caafimaad ahaan productiga lagu sheego caafimaadkeedu waa sidee iyo qaabkeeda ganacsiga. haddaan ku hormarno midda caafimaadka sameeyeen marka waxa loo yaqaano marketing plan qorshooyin suuqgeyn ah waxayna si dadka ugu iibiyaan waxay target ka saareen dadka markii horeba jirkoodu uu dhisnaa sida ciyaaryahanada oo kale. tusaale haddii aan usoo qaadano
waxa ay Cristiano Ronaldo ku bixiyeen lacag aad u badan, adduun aad u tiro badan, millions of dollars ay ku bixiyeen si uu ugu xayeysiiyo. Lacagtaas ay ku bixiyeenna waxay ugu talagaleen aniga iyo adigaba ay naga iibiyaan productgaas, ayna noo tusaan inay leedahay natiijooyin fiican. Haddii aynu isticmaalnana aan natiijooyin fiican ka helayno. Marketingkoodu wuu ballaaran yahay, waxaana ka mid ah inay sanad walba ay qabtaan events isku imaadyo waaweyn. Qaabkaas marka ay caafimaadka ay uga hadlaanna waxaa lagu eedeeyey inta badan exaggerations ama buunbuunin saa'ida oo xad dhaaf ah, sida dad badan u ololeeya ama kooshka ah ay iibiye ay ku tilmaameen. Mararka dadka qaar ay u sheegeen haddii aad isticmaasho waxaad ka maarmi doontaa takhtarka iyo cuntooyinka kaleeto. Taasina waa mid feelsa ah oo been ah. Productiga marka caafimaadka markii laga hadlayo dadka qaar ama kooshashkooda waxay noogu sheegaan inay ka fiican tahay wax walba ay cuntada ugu wanaagsan inay yiraahdaan, ama sida best breakfast oo kaleeto, cuntada ugu wanaagsan, wax walbana ka wanaagsan. Laakiin su'aashu waxay tahay goormee cunto waxay ahaataba lasoo process gareeyay, warshad soo martay, lasoo gasacadeeyay, ay ka fiicnaatay cunto fresh ah aan lasoo warshadaynin oo sida geedka uga soo go'day ah ee organic ah. Caqliga saliimka wuxuu noo sheegaa mar walba inay wanaagsan yihiin cuntooyinka organiga ah. Waxaa la jeedaa cuntada sida warshada aan soo marin, sida caadiga ah uga soo baxo dhulka la beerto, geedaha laga soo gooyo, amaba haddii ay yihiin digaaga oo kaleeto, ukunta oo aan laga qaab kaleeto koronto iyo mashiino iyo waxyaabo kale loo adeegsanin, si freesha oo organiga sida caadiga rabbaaniga ilaahay ugu talagalay ee u dhasho ukunteeda. Ukuntaas waxaa loo yaqaanaa organic, waxay ka wanaagsan tahay midda kale ay ka wanaagsan tahay. Laakiin qolooyinkan waxay noo sheegaan Herbalife waxay ka wanaagsan tahay khudaarta cambaha oo kale, qaraha oo kale iyo fruitiska oo kale ay ka wanaagsan tahay. Ayadoo aan ognahayna Herbalife tusaale ahaan midka mangoga ah halka kaga muuqdo waxa waa mango flavor, wuxuu leeyahay kaliya uduga ama dhadhanka mangoga. Markaas waxaa lagu daray waxyaabo kale anaga aanan aqoonin lagu daray, mixia laga dhigay, la isku qasay iyo kiimiko iyo waxyaabo kambaniga sir u ah oo cid ogaan karta aynan jirin. Saa darteed haddii lagu daray waxaas oo idil oo kiimikaada ee soo mara ee la process gareeyay, marnaba ma ka fiicnaan karto haddii cambaha caadiga ah, mangoga caadiga ah, qofka haddii uu caanaha ku shiido uu isticmaalo, marnaba ma ka fiicnaan karto caafimaad ahaan. Haddii halkaas aan kaga baxo arrinta caafimaadka ah,